haddii aad tahay qof freelancer ama qof keligii shaqaysta haddaad tahay wuu ku anfaca keligaada iyo computerkaada iyo internetkaada keliya wax alaala waxaa taqaanaa la soo gelaysaa waxaad ku shaqaysanay adoo xaafadaada joogtid ku raaxayso ma fahanti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma tahay arday shaqo la'aan guri la fadhiyo ma doonaysaa inaad gurigaada aad ku taajirtid haddii ay jawaabtaada haa tahay fadlan anaa ku tusaayo ku geenayo isoo raac marka hore waxaan kaa codsanaa haddaad tahay qof cusub inaad subscribe ii saartid like iyo share-kan aad igu caawisid haddii aad tahay saaxiibada hore ugu joogane fadlan waxaan kaa codsanaa inaad share-ka iyo like iyo comment-ga aad igu caawisid waxay ii tahay waa dhiirigelin haddii aad tahay qof shaqo la'aan guri la fadhiya ama haddaad tahay qof ganacsi ka shaqeeya waxaan kuu sheegayaa sida ugu fudud oo lagu shaqaysan karo internetkan ma u baahnid inaad wax kale inaad meel furatid ama meel tagtid kaliya waxaa u baahan tahay inaad computerkaada iyo laptopkaada aad kala furatid marka u horeyso isoo raac anaga qaabka lagu shaqeynayo ku tusaayo nakeen marka ugu horeyso waxaa soo furaysaa computerkaada ama laptopkaada aad soo furanaydaa kadib googlaha tage kadib waxaa qoranaysaa Upwork wuxuu kaa saacidaa inaad ku shaqaysatid qaab freelancer ahaan haddii aad tahay qof guri joog oo gurigiis iska fadhiyo wuu ku anfacaa mideeda kalena mar walbana internetka lacag ku bixisaa fadlan marka ugu horeyso internetka dakhli ka samee waa ka sameyn kartaa bil walba inaad sugtid lacag yar oo qoondaa waxaa kaaga wanaagsan inaad internetkan ka shaqaysatid marka ugu horeyso markaad waxaa soo qoraysaa Upwork waxaa tagaysaa horta website-kan sida caadiga ahayd sidoo u shaqeeyaa website-kan wuxuu leeyahay login create iyo freelancer jobs here marka halkaan waxaa ku dhufanaysaa sidoo u shaqeeyaa website-kan waxaan gudagalaynaa qaabka u shaqeeya website-kan marka hore waxaan dulmaraynaa website-kan waxaa waaye guri cusub kusoo dhawaab gurigaada si wanaagsan uga shaqayso marka ugu horeeyo adoo gurigaada fadhisid ka tartiibtaada adiga kursigaada iyo miiska inta aad dul saaratid iyo laptopkaada iyo koobkaada kubashiinka soo qabatid ama koobkaada kafeega ama shaaxaada ama koobkaada cabitaanka wax alaala waxaa jeceshahay adiga xiiseynaysid soo qaado computerkan soo dhigo geeska tabletkana soo saar ama miiska marka waxaa sameynaya horta sida guud waxaa waaye ujeedaan maxaa lahaa waxyaabaha loo iskaaga baahan dad badan ka shaqeysta ujeedaa tartiib jadwal u sameysanaysaa waa ku shaqeysanaysaa marka website-kan website legit ma yahay website la aqoonsan yahay ma yahay website-kan website la aqoonsan yahay waa aqoonsan shirkado badan aqoonsan tusaale waxaa kugu filan Microsoft iyo shirkadaha meeshan ku taalo website-kan waxyaabo badan dadkana ka shaqeysta waxyaabo badan oo ka caawinaa website-kan marka website-kan waxyaabo badan oo ka caawinaa website-kan sax miyahay sax waay website legit waay oo la hubo meesha ugu hooseysta website-kan waxaa la sameeyay 2015 2021 mana ku sii dheeraanayo waxaa rabaa inaad gudaha galo casharadeena website-kan shaqo walba ma ka helaa shaqo walba allaala shaqo adiga aad qaban karto waa ka helay website-kan haddaad tahay qof maxaa lahaa waa kuwana mujda website-kan haddaad tahay qof developer creative design allaala wax adiga aad qaban karto haddaad tahay sales marketing haddaa writing translation haddaa qoraal qori kartid aad translation ku samey kartid inaad customer-ka caawisid haddaa tahay qof finance soo bartay wuu ku anfacaa haddaa tahay qof IT soo bartane sidoo kale wuu ku anfacaa fadlan ka faa'iideyso xaqiiqda real ani si free wax kugu baraa wax lacag ka maraw kaliya adiga inaad shaqeysatid aad horumar gaartid nafsadaada aad wax ku baratid u baahana ma fahanti
marka waa kaasa website kan lacag ma lagu bixiyaa maya haddii aad tahay qof freelancer ama qof keligii shaqaysta hadaad tahay wuu ku anfaca kaligaada iyo computerkaada iyo internetkaada kaliya wax alaal waxaa taqaanaa la soo gelaysaa waxaad ku shaqaysanay adoo xaafadaada joogtid ku raaxayso ma fahanti qof cusub hadaad tahay Upwork waa iska diiwaan gelin kartaa si free aan iskaga diiwaan gelin kartaa iska diiwaan geli si free iskaga diiwaan geli marka uu hore sign up leh waxa laga baahay Gmail ina leedahay bis only Gmail ina leedahay wax kale lagama baahno hadaa taa qof hore isku diiwaan gelin login kaas galay hadii aad tahay qof cusubne laba qaab la isku sameyn karaa ina caad u sameeysid email caad u sameeysid ina maxal laha aad ku sameeysatid Gmail kaada aniga waxa ku sameeysan Gmail kana meeshaan ku keenaa marka meeshaan oo keeno Gmail kaada gasho Gmail kaada marka gashatid Gmail kaada gashanay Gmail kaada marka gashatid kadib next aan leedahay next password kaada gasho next wuxuu geenaa meeshaan oo keenaa wadankaada ku geenaa meesha aad joogto wadanka rabtaa saaran kartaa marka anaga Soomaaliya saaranayna sida website kan dadka Soomaali jooga ugu shaqeysan karaan marka Soomaaliya wadankaada soo doornay kadib meesha waxa lagu leeyahay maxaa doonaysaa maxaa project ma doonaysaa mise work freelancer anaga inaan ku shaqeysanaa qaab freelancer ahaan freelancer ku dhufo yes agree waxaan shuruucdaan iska aqri kadib create my account waxa marka aqrisatid oo create my account aad aadid meeshaan oo geenaa marka waxa lagu leeyahay continue hore u sii soco waxaan intaan shuruudahan waxa laga baahan yahay shuruudahan soo buuxisid waxa lagu dhahay Cabdisaaq waxa soo joon gareysay qaab freelancer ahaan waxa soo joon gareysay Upwork marka mardoona iyo wadoona adiga kala tahay kadib waxa sameynaysaa continue ku dhuf click continue marka click continue soo sameeysid kadib start my profile leedahay waxa guda galaysaa oo waxa buuxinaysaa qaybaha meeshan ku qoran meeshaana buuxinay ugu la soco waxa helaysaa email 24 saacadood wajida oo ka accept ku sameey kartid marka waa kana start my profile leh start garay oo profile kaada marka waxa sameeynaa waxa update gareynaa profile keena update gareynaa waxa ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay fill automatic auto manually si manual ahaan u buuxso waxa lagu dhahay waxa meeshan gelisaa experience-gaada gasho waxa adiga u baahan tahay tusaale u baahan tahay maxaa lahaa accounting consultant admin supporting customer service data science design creative engineering IT networking legal sales marketing translation web mobile wax waxa adiga u baahan tahay category-ga u baahan tahay ku dhufsanay category adiga u baahan tahay ku dhufsanay admin support aan dhahnay admin support marka waxa si dooranaysa waxyaabaha adiga noocyada ay ka sii qaban karto data entry gelin kara project management personal issue transformation admin support waxa jeceshaa skills ka rabtaa gashanaysa meesha marka waxa lagu dhahay what skills do you offer client maxaa skills ka la gashanay sale Adobe Audition leedahay ama Microsoft Office leedahay hadaa rabto waxa waaye tan waxa waaye liya marka ina adiga wax aad ku dooran kartid hadaa taqaan Photoshop oo kale
waa kana Photoshop oo kale waa gashan kartaa Adobe Photoshop hadaa taqaan Adobe Illustrator hadaa taqaan Adobe Illustrator hadaa taqaan oo kale asigana waa gashan kartaa adiga all Adobe alaal wax aad taqaana meeshan skillska aan leedahay gashanay hadaa account tahay hadaa writing translation hadaa tahay network wax alaal waxa u baahan tahay wax alaal waxa gelgelin karto ya adiga marka skillskaas wax alaal waxa rabtaa gashanay anaad waxa gashanaa Microsoft Office Google Sheet Google Sheets waa geli karaa marka intaan ku soo koobsana example adiga inta alaal skillska taqaano waa gashan kartaa adiga cid ku diidinayso malahan kadib meesha waxa leedahay skillska marka soo buuxisid next marka dhacay wuxuu noo sii gudbinaa hadda waxa soo dhaafnay experience labadana soo buuxsan hadda waxa expertise levels waxaan leenahay intermediate next hadda adiga expertiga adiga inta experience leedahay meeshan heerkaada experience-gaada qoranay next marka dhacid meeshan wuxuu lagu keenaa education-kaada waxa gashanaysaa iskuulkaada iyo wax alaal waxa u baahan tahay aad gashanay meesha adkaas ku dhufanay iskuulkaada magaciisa maxaa lahaa university-kaada magacaada gashanay area aad ka baranaysid bachelor-kaada degree-ga xilliga bilaaday xilliga dhameysay marka faahfaahin description kadibna save dheh intaan u baahno escape iska dheh escape aan iska leeyahay ma u baahni waa tan ka soo buudo ujeeda education kaada inaa wax gelin u baahni employment shaqaale ma tahay adiga shaqaalenimada experience-ga inta tahay inta gelinaysa asigana sidoo kale company-ga soo shaqeysay meeshu ku yaalo wadanku ku yaalo title-ka ka ahayd waqtiyada ay shaqeey jirtay sanadii ay shaqeey jirtay iyo description-ka iyo ay meesha jack saare description-ka qore kadibna save leedahay escape iska dheh next leedahay aniga escape iska dhahay language luqadaha aad taqaano maxaa kamid ah what is your English profession English-ka heerka ay gaarsiinsantaa waxa tahay basic ma tahay controversial ma tahay yani at least wax ma qori kartaa waa basic waxa weeyna wax qori kartid language wax ka qori kartid inaad dadka la sheekeysan kartid wax aad qori kartid iyo inaad si fiican aad ula hadli kartid conversation waxa weey inaad wax qori kartid aan ku hadli kartid inaad fluent waxa weey inaad maxaa waxan qori kartid si fiican aad uga hadli kartid perfectly native qof wadanka maxaa la luqadaada hooyo adeetayo kale aniga marka waxaan leenahay conversational aan leenahay conversational kadib markaan aad kadib next marka dhahayd meesha waxa ku soo baxay saacadaha aad shaqeynaysid hadii aad u baahan tahay adiga saacadaha aad shaqeynaysid meeshan waxa ku qoran hourly rate ku qoran Upwork service explain this you receive inta helaysid inta maxaa lahaa Upwork service fee inta lacag ay ka jarnayso saalo kala saacada $10 ku shaqeynaysid ay laba sitee ka jarnaysid $8 helay dan ay ku tahay sababtoo adiga ma lihido adiga shaqada waa qabanay qofkan la macaamilay lacagta lagu siinaa lacagta markii lagu siiyo hore u soconay ayadana shirkadda marka website-ka wuxuu ka percentage 20% ka jaranaa inta shaqeysato 20% ka jaranaa infaanti marka inta waxa gashanaysaa saacadan waxa ku shaqeynaa $10 meeshaas $10 gasho $10 meeqo iga jar automatic 2 cent iga jar mujida $2 iga jarte $8 boqolkii 20 iga jarana waa $8 oo hadda isii marka okay waa maasantahay next marka dhahdid kadib meeshan waxaa gelinaysaa title-kaada iyo professional overview-ga marka title-keena waa hoosaan kusoo diyaarsanay title-keena waa kana noo soo qaad professional humble assistance inta tag meeshan ko basti ku dheh kadib haddana inta tag inta dhan noo soo koobiyay
noo soo koobiye noo soo qaad inta gay inta control v ku dheh kujida marka waa kana waxaana qof freelancer ah adiga adaa iska sheekeynaysid waxyaabaha aad qabanaysid aa sheekeynay waxyaabaha qabtaan waxaa bedelaa comfort pdf excel word sheet waxyaabahaana daldalay adiga wax allaala wax adiga experience aan leedahay adiga aad qaban karto sheego waxaad qaban karnaa isku sheeganin waxaad adiga qabsan karto sheego marka next dheh waqtiyada aan shaqeeyo iyo saacadaha aan shaqeeyo meesha waxaa u baahan tahay inaad sawirkaada soo gelisid meeshaan sawirkaa soo gelinayna sawirkaada soo geli sawirkaada saxda soo geli meeshaan tag هاو الصور صور كان اسكا سو غلي صور لا اسكا سو غشو انو غداران كبدلينا كدب سيف ده صور كوا سو غليني حد maxaa noo dhiman meesha xanuun numberkaada inaad gelisid waxyaabaha adiga sawirka ma soo geli karo sawirkan kana soo qaadanay kii hore waa naga diiday marka aduu ka diido waa bedelay wax weyn ma ahan adaa rabto minimize ka soo yareynay oo sawir waadax oo kaliya loo baahan yahay hadaysan kugu jirin gadaal dam ka soo qaado gadaal dam ka soo gashan kartaa kadib waa ka soo gashan sawirka next aan dhahnay meesha joogno wadada degan tahay waxa gelinaysaa xaafadaha degan tahay meesha aad degan tahay waxyaabo marka intaan buuxisid kadib next dheh marka inta waxaan gelinaynaa xaleenahay wadada warshadaha tusaale warshadaha dheh inta 00 iska geli 40 iska gasho warshadaha maxaa aniga apartment Soomaaliya laga yaqaan hore ugu soco meeshaan dadka dibadaha jooga la hadla meeshaan aa u jeedid wadankaada gashanay in warshadaha tusaale wadamo kale hadda meeshaan ku fiirno kale Afghanistan hadda ku fiirno wadamo kale hadda ku fiirno kana street address muyda apartmentiga aad degan tahay wadanka caasimadii village ka aad degan tahay oo yaani gobolka aad degan tahay zip code ka aad leedahay marka inta sameeyay anaga hadda dadka Soomaali jooga waxaan ka caawinaa qaabka ay u gashanayaan Soomaali wadada warshadaha meesha ka tag meeshaan xaalada Muqdisho leh caasimadda gashanay Muqdisho iska leh kadibna zip code kana ever 4 ever aad iska gasho kadibna next leh kadib meeshaan number geli number la gasho numberka aad leedahay gasho kadibna preview profile leh kadib iska jaga garee oo fiiri ma sha Allah login good Abdursaaq waa soo gashay waa maasan login good ku sameysay kadib meeshaan aan fiirinaysa Absaaq Nuur aadan magacaada waxa soo dhameystirmaa meeshaan waxaa joogtaa Muqdisho Soomaaliya location kiisa waa Muqdisho Soomaaliya language kiisa waa conversational luqadiisa waa Soomaali ya adaa ku sii darsanaysid halkan awida xataa qof daacada oo karti leh oo shaqadan qaban karo oo wanaagsan oo dag waxyaabana qore saacadaha ku shaqeeyo waa $10 waa ka badsan kartaa skill-ka aan leeyahay waa intaan oo skill aan leeyahay submit profile leh profile-ka submit gareyso marka submit profile-ka dhaadid wuxuu toos ku geenaa meesha shaqada toos ku geenaa
waxaa lagu dhahaa waa kanaa fiiriyaa waa idiin soo dhaweynaa. Congratulations, you now post part of work. waxaa ka mid tahay qayb ka mid ah abooga ka mid tahay maxaa waxyaabahan soo buuxisay profile-kaada, GitHub-kaada, payment-gaada, waxyaabahan oo dhan tigta lagu saaro way ku furan tahay. shaqada guda galaysaa, shaqada toos ah oo guda galay. halkan waxaa ku qortaa Soomaaliyada, yacni Soomaalida ka shaqeystaan ogaanaynaa. Soomaalida professional-ka ogaanaynaa meesha ay ku jirto. marka Soomaalida oo arkaysaa marka waa kana, marka waa ku maasan tahay, waa iska diiwaan gelisay waxyaabaha barsashada aan soo mar waxyaabahan iska soo buuxi. marka waa kaasa casharkiina oo sii dheeraado ma rabo. marka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartaan, like iyo share iyo comment aad igu caawisaan, mar walbana aad ugu dhiirigelisaan daawashada. marka waxaan ka codsanayaa daawashada ugu dhiirigeliya. alaala wax adiga ka qabtana su'aalna waa isoo weydiin kartaa. casharkeena waxaan jeclaan lahaa inaan meeshaan ku simo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.